وفود إسرائيليين ككلا سعتي السودان يسدو كلا دولة إماراتك لما مالين أو إسكو حكته وحا صوماليا يمد أما فيلا صوماليا قابشي ومدحوين حسن شيخ محمود وقابلي لما وفدي أو ككلا سعتي دولة السودان يسدو كلا دولة إماراتك لما وفدي أي وحا أي مالين لما مالين أو إسكو حكته إيجونا دناها أي السعودين لشيء جيني يهين دنا إسكسو هرتشيدا لكن مدحوين حسن شيخ محمود أي لمضى سو دhoweeyay sidoo kale waxa la sheegay inuu ka gudoomay dhambaala ay uga sideen madaxda dalalkaas waxa jira war dawladda Soomaaliya ay ku beeninayso in safarka labada wafdi xiriir ka dhaxeeyo oo ay soo saartay Sona iyo warbaahinta dawladda ama telefishinka qaranka lagu soo baahiyay laakiin waxa jirta dhowr su'aalood oo aysan dawladdu ilaa ay hadda ka jawaabin su'aalahaas oo ah in Imaaraadku dalka Soomaaliya kala qaybin iyo faragelin iyo dhibaato ku hayo دولة الصومالية كما أيسا جوابين وحيسا كلو سكا جوابين إن محال لبدا السفر اسكو سو آديي سفر كان أو لبدا وفديو اسدابا سعودة يسيدو كلا سفر كهوريي ولبا وفديو سيدو كلا سودابا سعودين مدحوينونا كلا كلمي ايرابورت محا كلميي لبدا استلابو يسيدو كلا خلاف كإمارات يو سودان ودحية مي دولدو انكريسا وسؤالها أيسان دولدو ولي كجوابين مدحوين حسن شيخ محمود أيا waxa la sheegay in uu guddoomay laba nabaal oo ka kala socotay madaxweynaha dawladda Imaaraadka Carabta محمد بن زيد يسيدو كلا قدوميها قولها كميل جاركة السودان جنرال عبد الفتاح برهاني هذا بقى جددا وفدي محوها دنبالك سمحا كقرنا ما أرنتي بوساسو صوماليا جده هذا اللغة دولة السودان بقى ما سيدو كلا ما أرنتا قولها أمان كقرمد مدوبي كرسي عن جوكتدا هاينا الصوماليا كلها ده هاي قرار كده يعد كده أنا كيسيدو أنت اللغة دودية محا وكساب سنة وفدي أما سيدو كلا دنبالك سو جاري في الصوماليا محو كساب سنة أرنتا سيار ربنا هنا كان كفلان لبدا وفدي مدحوين حسن شيخ محمود ودا قابلي waxa kale hogaaminayay madaxa sirdoonka Suudaan General Ahmed Ibrahim Ali Mufaddal iyo sidoo kale dhanka Imaaraadka Carabta oo ka socday wasiiru dawlaha arrimaha dibadda sidoo kalena ah oo qaabilsamaha Imaaraadka Carabta ee arrimaha Soomaaliya Shakbout bin Nahyan labadaas wafdi oo ka kala socday labada dawladood ayaa waxa la sheegay inay u kala sideen dhambaalo ay ka sideen madaxdooda ama dawladooda labadaas dhambaalo sida la sheegay iska soo horjeeday oo anti isku ah marka waxa la sheegay madaxweynuhu labadiiba inuu qaabilay dhambaalladiina ka gudoomay go'aankana uu filla Soomaaliya xilligan la joogo agyaal dad ba marka waxa ay ka sameeyeen xogaa dacaayada madaxweyne madaxa sirdoonka dawlad kale la kulmaya iyo madaxweyne sidoo kale la kulmaya wasiiru dawle oo arkayso markii madaxweyne loo eego darajada u dhaxaysa ay waxay leeyihiin aad buu u bahdilay madaxweynuhu dawladnimada Soomaaliya laakiin sida ma aha dhambalsida saameyn male dhambalsida waa dhambalsida waxa muhiimka ah ma aha isaga waxa dhambalka laga sido ama qolada dhambalka soo dhiibtay ayaa muhiim ah oo madaxweyne dhambal ah cidii sidaba hasido nabiga kaleey salaatu salaam dad baa dhambal u keenay jiray dadkaasina maqaam ahaan inay asaga u dhow yihiin iyo inay xataa dad darajaha yihiin iyo muhiim ma ahayn muhiimadu waa cidda dhambalka soo dhiib taas halka uga gudub hadaynu wax yar isla socodsiino sida la socotaanba Suudaan 2 sano waxa ay ku jirtaa dagaal faraha looga gubtay oo baan dhiig badan oo ku daadanayo waxaana ku dagaalamaya gudaha Suudaan ciidamada Suudaan iyo sidoo kale koox la yiraahdo RSF oo ay maalgeliso dawladda Imaaraadka Carab kooxda RSF oo taageero ka helaysa Imaaraadka kana soo horjeeda ciidamada dawladda Suudaan ayaa waxa ay xasuuq badan ka geysteen gobolka Darfur gobolkaas oo sida la sheegay ay ku laayeen qabiilo badan xasuuqna ugu geysteen qabiiladaas maadaama ay taageereen dawladda dib u qabsashadeedii Khartoum ay dawladda qabsanaysay xilliga wixii ka dambeeyay xasuuq badan ay geysteen marka dawladda Suudaan xasuuqi ay diiwaan gelisay Suudaan marka dawladda Imaaraadka Carabta ay golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxa ay ka geysay dacwad ka dhan ah maadaama ay dawladda Imaaraadku si toos ah u taageerto kooxdan RSF dawladda Imaaraadka oo adeegsanaysa dhaqaalaheeda iyo saaxiibadeeda badan ayaa waxa ay iyaduna kula dagaalantay gudaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay marka waxa jira dagaalkaas diblomaasiyadeedna waxa ay Soomaaliya kamid tahay golaha ammaanka qaramada midoobay kursi waxa ay ku leedahay aan joogto ahayn sidaas la ajligeed ayaa waxa xoguhu sheegayaan in loogu tartamayo Soomaaliya maadaama ay goob muhiim ah joogto Afrika markii la yiraahdana Soomaaliya ay ku matasho kursiga aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka marka waxa la leeyahay tartan baa jira diblomaasiyadeed dagaalkaas diblomaasiyadeed ayaa ka socda golaha ammaanka ee qaramada midoobay Soomaaliyana waa dal muhiim ah sidaas ayaa loogu soo kala ordaya qodobka labaad oo isagana la sheegayo inuu ku saabsanaa dhambalku waxa la leeyahay waa qodob ku saabsan weerarkii Boosaaso looga qaaday dawladda Suudaan iyadoo la adeegsanayo hawada Soomaaliya ayaa lagu xadgudbay Khartoum waxaana la duqeeyay garoomadii Khartoum
waxaana la burburiyay waxa la wixii baawur iyo taagnaaya la burburiyay dhibaato weynna waa loo geysay iyadoo waliba diyaaraddu si toos ah uga duuleysay baa la leeyahay Boosaaso oo Soomaaliya ka tirsan marka falanqayaashu waxay leeyihiin labada qodob dambaalku waa uu ku saabsanaa waa arinta golaha ammaanka iyo sidoo kale xadgudubkii gudaha Soomaaliya looga geystay dowladda Suudaan dambaalkan ayaa farintan waxa uu ka soo baxay dowladda Suudaan kadib shirkii golaha wasiirada oo markii ugu horeysay dhacay ilaa 2023 kadib markii dagaalka ay faraha la gashay dowladda Suudaan ayaa shirka ugu horeeyay wuxuu dhacay 2 maalin ka hor shirkaas oo u qabsoomay golaha wasiirada ee Suudaan oo hogaaminaya ra'iisul wasaare Kamel bayaankan ayayna soo saareen waana shirkoodii ugu horeeyay kadib burburkii Suudaan dambaalkaas ay dowladda Suudaan soo dirtay kadibna maalin kadib waxa ka daba yimid wasiiru dowlaha Imaaraadka oo isaguna dambaal kala wada marka waxa dareemaysaa Suudaan waxa ay soo dirtay madaxa sirdoonka Suudaan ay soo dirtay marka waxa dareemi kartaa arrimo amni inay ku saabsan tahay waa marka koobaad waxa marka loo badinayaa qodobka ah xadgudubkii gudaha Soomaaliya looga geystay marka waxa la leeyahay arrimahan laftigooda waxa qayb ka ah dowladda Turkiga oo iyaduna arrimaha amniga kala shaqeysa labada dowladood ee Suudaan iyo Soomaaliya Imaaraadkuna waa uu kula dagaalamayo dabcan amni darrada iyo waxba wax ka qasaya isaguna marka halkaas buuq ugu badan ka jira ayaa la leeyahay marka dowladda Turkiga qayb ka tahay in labada sirdoon xoguhu wadaagaan wada shaqeeyaan arrimihii Boosaaso ka dhacayna mar dambe aysan soo laabanin dowladda Suudaan oo tiri talaaban ka celinayna in laga wada hadlayo arrimahaas ay u badan tahay ayaa la leeyahay haddaba Soomaaliya maxaa la gudboon dowladda Soomaaliya ayaa hadda ka hor bayaan hore ay u soo saartay wasiirka arrimaha dibadda soo saaray waxa lagu taageeray guulaha ay dowladda Suudaan ka gaartay kadib qabsashadii Khartoum ay dowladda Soomaaliya taageertay guulaha laga gaaray dagaalka lagula jiro kooxda RSF oo ay taageerto dowladda Imaaraadka marka go'aankeedii hore dowladda Soomaaliya xilligii hore uu cadaa waxa ay toos u taageersanayeen dowladda Suudaan dowladda Imaaraadku waa caqabada ugu weyn ee duminta ka socota Afrika wadamada Afrika gaar ahaan wadamada muslimiinta lagu burburinayo waxa gadaal ka riixaysa dowladda Imaaraadka iyadoo hore Liibiya u burburisay haddana gadaal ka riixayso gadaal ka taagan dhaqaalaheeda wasaqda oo dhibaatada badan ku bixinaysa burburka ka socda Suudaan iyo halaaga lagu wado dadka shacabka iyo masaakiinta dowladdiina lagu burburinayo ay gadaal ka riixaysa Imaaraadku waxaana u fududeynaya arintaas dhaqaalaheeda iyo sidoo kale ciidamo ay Afrika ka samaysato calooshooda u shaqaystayaal iyadoo waliba la soo tabinayo inay waayidii u dambeeyay samaysanayeen ciidamo Soomaali ah oo calooshooda u shaqaystayaal marka inagana dhibaatay nagu hayaan Yemen waa ay kala qaybiyeen Soomaaliya waxay u kala taageen qaab kala gogoyna maamul goboleedyada si dowlad amal ula macaamilaan dekado iyo dhaqaal maalgelin ku sameeyaan waxa ay haddadan la joogo sida la sheegay dowladda Imaaraadku balaayiin dul dhigtay dacwad Soomaaliya lagu kala qaybinayo ama kiis yaala aqalka cad ee Mareykanka Soomaaliya la doonay in lagu kala qaybiyo midnimadeedana lagu dhantaalo haddaba iyadoo Imaaraadku saas ah dabcan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kama qarsoona wuu og yahay in Imaaraadku yahay abeeso cunaysa oo mucaaradka waxa ku kicinaya qayb ka yihiin maamul goboleedyada cidda ka horkeenaysa inay iyaga yihiin Itoobiya waxa gadaal mar walba ka taagan inay iyada yihiin wax walba dowladda Soomaaliya way ogtahay ama madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waa uu ka baxan yahay laakiin lama oga ilaaha iyo hadda talaabada uu qaadi doono ama dhanka uu awoodda sii doono maadaama dhambaalada soo gaaray ay yihiin laba dhambaal oo iska soo horjeeda haddaba adiga aragtida waa inuu muhiim maanta Soomaaliya waxa ay fadhisaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay kursi ay ku fadhiso waa Afrika ay ku matashaa waxaana kamid ah Suudaan adiga haddaba aragtida waa muhiim dowladda Soomaaliya xilligan oo kale maxaa la gudboon ma Imaaraad oo dhibaatana ku haya in inta laga cabsado cabsida darteed loogu campaign gareeyo laguna taageero mise in dulmiga la diido tabartaadu intii rabtaa la ekaatay aragtida waa muhiim xagga oo sayfaladan ugu reebo salaam alaykum